sir ilaahay in la xasuusiyo wax laga yiraahdo way u baahan tahay waxa arkay dadkii ka tacsiyeynayay waxa kamid ahaa afayeenka ururka shabaab cali dheere oo dadkii inay ka xun yihiin iyo tacsiye diray runtii waa la yaabo waa isweydiiyeyo waxaan raadey dadku muslim yihiin iyaga waa muslimkii na ka dhigay Soomaalida hay maxay leeyahay tacsiye dirayaan shacabkii masaakiinta Makal Mukarrama ugu dambeysay soo dhowr iyo 30 maalin ku dilin inta dhaawaca marka laga soo tago shaamu soo boqolaal kuma dhimanin tiyaatarka dadkan tumeeyo ku dhow soo kuma dhimanin dadkan Soomaalida muslim ma aha miya jirkoodu gubanayo guryaha lagu duminayo oo hantidoodii la baabi'inayo dad la laayay inta dhaawaca haddii la muslimiinta halka konton baa kaga dhimatay sanadkan intuu bilowday ama sanadkan iyo sanadkii hore boqolaal bay iyagu muslimkii Soomaalida ka dileen kuwan muslim dhiig le ma aha miya kuwan muslimka loo barooranayo in la ilaaliyo dhiigoodu yahay kamid ma aha miya mise kan New Zealand ee fogna waa loo tacsiyeen ka daris kale ee Soomaalida ana waa la baabi'in maxay kala duwan tahay dadka muslimka dad magac Soomaaliya muslim ku baabi'isay haddana magac gaal ku baabi'isay soo dilkiya baabi'intii ma haddii laga hadlayo masaajid yaa masaajid dadka ku leen jiro qarxin jiray waliba jumca shaqada gacmo yaa masaajid salaad casar jumca isagoo rukuucsan dilay isla jumca dhaweyto boosaasan masaajid bartanka yaa ku dilay nin ugaas dadka yaa masaajidka markuu galay ka baxaya laaya iyadoo jumcooyin la tukanaya xamar masaajid kamid yaa qarxiyay iyaga ururkooda ma ahayn hadday daacad ka tahay oo diin iyo ilaahay dartii ka tahay dad muslimi iyo dhiigoodii inuu qaaliye maxay iyagu masaajidii iyo irdahoodii u laynayaan maxay masaajidda jumcooyinku u qarxinayaan maxay goobahoodii ganacsiga iyo suuqyadoodii ugu baabiinay u halaagayaan mase mudan tahay warkaas oo kaleeto inta si diin iyo daacadnimo loo qaato waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta la midka atoona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan gaaraan ururadan sidan oo kaleeta ka tacsiyeeyaan waxaan filayaa tacsiib beena way adoo markaad intaad ka tacsiyeynayso boqolaabkee disho muslina oo masaakiin maxaad iska fadhiya kuwa suuq iska fadhiya kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara kuwa jidad iska maraya marka adigu ma ka dhigto haddana ku faanto oo haysata janno inaad ku galayso kii kala laaya maxaa kaa galay adiga adoo allaynaysa intiisa ka barada u geysanayay waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay inay ka dhahdeen run ka tahay inay muslim dhiigii daatay ka xun yihiin kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan ilaan dadkii waa dhammeeyeen qaraxyadii bayna ku dhammaadeen waxaa laga yaabaa qof iyo laba dowladaan u socon oo dagaal naga dhexeeyo dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay waxaa wajida fariinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiigii inay ka danqanayaan oo dad muslima oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin ilaahi subxaana wataala waxaan ka baryayaa mar kale dadka muslimiinta ee meesha dulmiga loogu laayay inuu shahaada uga dhigo dadkoodina sabr iyo iimaan ka siiyo iyagana ilaahi subxaanahu wa tacaala wax ka khayroon ugu bedelo intaasan kuubaya kelmadeyda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu